السلام عليكم أنا حلوان فرحية حسن أحمد waxaan sheegayaa ummadda islaamka u sheegayaa ee xildhibaanada iyo golaha shacabka iyo guddoonka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha qaranka mooshinka la keenay waagii hore waa ku jiray waxaan u galay arinta qabla dhagax wakiil awaa u galay lama keenin kadib waagii aan saxiixay wuxuu ahaa 17 lama keenin mooshinka daba la keenay shaqo ku malihi keenistiisana ma ogi anoo xanuunsan oo neeran jiran waa ka hadlay media waa caday inaan ku jirin haddana kuma jirin waayo qabla dhagax waa ku jiray lama keenin haddii soo aqseen ka shaqo ku malihi aniga laakiin aniga markii hadda kuma jiri shaqo ku malihi barigaan ka ahay diyaar ummi dadka la dumiyo diyaar ummi in yaani qofka laga bana awoorto daqiiqo qabla dhagax u yahay bana awoosho ma jirto ana saxiixay waa run laakiin hadda kuma jiri qabla dhagax uu soo baxay colaadii way dhamaatay Soomaaliya horumar u jeedaa maalin dhawaa loo socdo ma socoto wadanku inuu hor u socdaa